بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدنيال أمان ومدة هلكن وسو دويسay saxaafada markoo waxaan leeyahay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib ilaahay baa mahad leh lagu soo nabad celiyay dalkii hooyo marka labaadna waxaan mahad leh dhammaan madaxda dawladda iyo dhaqanka iyo shacabka reer Soomaaliland ee halka saaka lagu soo jarmaaday si ay noogu soo dhaweeyaan waxaan inta ka gudbo waxaan halka ka baxnay waftigayagani arbacadii hore iyadoo aan u baxnay laba arrimood oo muhiim ah arrintaasi dawladda Imaaraadka hawsha la soo kala saxeexnaynay saldhigga ciidamada arrinta labaad ee aad iyo muhiimka ah arrintii abaaraha runtii oo dalka la socotaan abaarta ka jirta iyo dhibaatada ka gaarsiisay ilaahay mahadii waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa in labadii hawloodba si wanaagsan ugu soo dhamaadeen tii abaarahana aan hay'adii khayriga ahaa haday ku abudubay tahay haday ku dubay tahayba aan iska soo aragnay runtii aan ka sidno jawaab wanaagsan ka sugno oo degdega oo ay naga caawinayaan iyagoo maanta u arkay walaalahooda lamida oo dhibaataysan talabaad waxay taas saldhig ahayd waxay maanta guul inoo dhamaanteen in qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu la saxeexdo dawladda Imaaraadka Carabta inuu siiyo saldhig military kaasoo aynu ka faa'iideyno waa midda koowaad arrin siyaasi ah oo wax ka taraysa siyaasadeennii ama hiigsigeennii mustaqbalka ee dawladnimo iyo midda labaad waa mid wax ka bedelaysa dhaqaalaheena xag infrastructure iyo mid arrimaha bulsho qiimo badan noogu fadhiya runtii waxaan ku soo heshiinay waxa labadeena dalba faa'iido ah sababtoo ah laba wadan oo kasta heshiis galayay waxay heshiiska galayaan wuxuu noqonayaa nuxurkiisu heshiis labada dhinacba ay ku qanacsan yihiin in laba dhanba ugu jirto marka ummadda reer Soomaaliya waxaan soo qaadnay heshiis inagana dan inoogu jirto walaalaheena martay aynu saldhigga siinay iyagana dan ugu jirto oo buuxiyay labadii danood ee labadii dal aan lahayn waxaan markaa ummadda reer Soomaaliya ugu bishaareynaa in khayrka niyad wanaagsan ku qaabilaan ummadda reer Soomaaliland in niyad wanaagsan ku qaabilaan iyaga iyo wixii la mid ah dalka maartay ajaaniba ay maalgelinayba iyadoo ay socoto in albaab weyn inoo furmay noqotay aynu soo dhaweyno aynu ka dayno inaan ku qaylino khayraadka inoo soo socdeen inaan qaylada ka dayno in ummadda reer Soomaaliya shacabku meel joogaan faraya dibadii gudaha aad iyo aad baa mahadsantahay wixii tafaasiil inta dheeraada si gaarimaha dibadda ayaa